komishanka doorashooyinka qaranka ayaa maanta kala diray gaadiidka xambaarsan qalabka iyo howlwadeennada ka shaqeynaya goobaha doorashada isku sidkan ee golayaasha deegaanka iyo wakiilada ee gobolka Sanaag taasoo guud ahaanba maalinta berrito ka bilaabmi doonta Somaliland waxaana goobtii gaadiidkan iyo howlwadeennada ka ambabaxayeen oo ahayd xarunta jaamacadda Sanaag ee magaalada Ceergaabo ka hadlay komishaneer Cabdiraxmaan Duxood iyo barasaabka gobolka Sanaag Injineer Axmed Cismaan Xasan waxaan halkan ku kala direynaa gobolka Sanaag magaalada Ceergaabo dhammaan goobihii codbixinta shaqaalaheedii gaadiidkeedii ciidankeedii ilaa imikana si fiican oo habsaniya runtii ay u socotaa waxaan runtii u mahadnaqaynaa barasaabka gobolka Sanaag taliyaasha ciidanka ee jooga gobolka Sanaag oo runtii si hagar la'aan ah horena noola soo shaqeeyay diiwaangelintii iyo kaar qaybintii maantana heegan u ah oo u diyaar oo 6 subaxnimo joogay goobta sidii ay nabadgelyo ugu dhici lahayd doorashadani arrimo badan iyaga xalilay runtii oo deegaanka dhexdiisa ah waan ugu mahadnaqaynaa ciidanka waxaan kula dardaarmaynaa inay ilaaliyaan goobaha ay joogaan markaa nabadgelyadeeda inay ilaaliyaan dhalinyarada ka shaqeynaysa shaqaalaha ka ay laga keenay gobolada kale waxa maanta wadankeena Soomaaliland ku sugan wufuudii abid ugu badnayd ee caalamka ka kaltinay waxaas wufuud waxay u yimaadeen waxay doonayaan inay dimuqraadiyadda Soomaaliland ka hana qaaday waxa la idinka rabaa inaad si cadaalad ah waxaan ku raad ugu shaqeysaan si cadaalad ah ugu hawl gashaan ardayda ama birka koobaad waxaad mas'uul ka tihiin waa dokumentiga la idin dhiibay iyo maxaan ku raadayay hawlwadeennada komishanka halka jooga ayaad maxaan ku raad mas'uuliyadooda nabadgeliyo qalab ahaaneed iyo dad ahaaneed marka hore mas'uul baad ka tihiin mar labaadna waxaad kala jihaynaysaan dadka kuyuga soo galaya ayaad kala nidaaminaysaan safkaad si fiican u soo taagaysaan qofka qaladka wada ee aan saxsanayn baad banaanka isaga saaraysaan aynu caalamka u sheegaynaa oo aynu leenahay waxaanu nahay nabadgeliyo waxaanu sameeynaa dimuqraadiyad markhaatigii cidii inoo markhaati furi lahayd gudoomiyaasha saddexda xisbi qaran ee gobolka Sanaag iyaguna halkaas ku sugnaa ayaa hadallo kooban oo halkaas ka yiraahdeen waxa kamid ahaa maanta fariinteedu waxay noqonaysaa inaan haddaan xisbiga u cidnahay dhammaan shucuubta reer Somaliland meel kastoo ay joogaan aan ugu baaqno doorashadii waa berri loo diyaar garoobo si nabadgelyo leh loo codeeyo komishanka qaranka oo maanta oo kale hawlaha ugu culus haya dalkana iyagu ugu sareeya maanta oo kale in lala shaqeeyo maanta doorashadaasi si nabadgelyo ah haday inoogu dhacdo waxa weeye waxa iman doonta Somaliland in wax badan iska bedelaan oo muxuu ahaa dunida ay ina eegto wax badan iska keen bedelaan marka waxaan oran lahaa hadaan nahay xisbiyada qaranka waxaanu ka midaysanahay in doorashadaasi si nabadgelyo oo silmi ah ay ku dhacdo reer Sanaag maanta aanu taaganahay oo mas'uuliyiinta xisbiyada halka loo soo diray aanu nahay waxaan leenahay gobolka Sanaag uu ka dambeeyaa gobolada kale Somaliland musharaxiinta maanta sharaxan ama baarlamaanka sharaxanaadeen ama deegaane waa ragga dadka ku leh ee ballanqaadka u sameeyay inay wax ka bedelayaan gobolka Sanaag dib u dhaca ka jira waxaan leenahay ka bilaaba berrito iyo maanta oo ah maalintii wanaag ay ku dhici lahayd maalintii gobolka Sanaag ka bixi lahaa dib u dhaca maalintii gobolka Sanaag uu gaari lahaa gobolada kale ha noqoto nin walba mas'uuliyad baa ka saaran